بسم الله الرحمن الرحيم. حالة هدا ودلك كسوغن يحي وحالة وأدك أبار دad iyo dunyaba saameysay oo boqolkiiba 50 ummadda Soomaaliyeed saameysay oo caruur iyo ciroole nin yar iyo nin weyn dadoo dhan geeri dadkii iyo dunyadii xoolihii oo geeriyoonay xoolihii oo dadkii ka dhamaaday dadkii oo biyo la'aan ku dhacday dhibaato aad u culus barakac iyo cudurro wax laga sheekeyn kara ma aha waa mushkilad aad u weyn oo caqliga ka weyn oo la soo daristay dadkeena abaarta sida aan aragno waa isoo noqonaysaa waxaan xasuusanaa tii 2011 roob yaraan way dhici kartaa waa wax la xiriira cimilada adduunka oo isbedbedelaysa laakiin in dhowrkii sanaba abaar ay nagu habsatay iyo macaluul waa wax aad u falxun oo aan la qaadan karin marka waxaan u baahanahay inaan u qorshaysano insha Allah ilaahay idamkiisa sidii looga hortagi lahaa aan xooga saarno qorshooyin kuwa gaagaaban iyo kuwa dhaadheerba in la sameeyo marka hore gargaar degdeg ah waa loo baahan yahay oo dadkii baa dhimanaya laakiin qorshe intaas ka durugsan oo wax looga qabta inayna abaar soo noqonin sida in geeda la beero biyo xireena in la sameeyo ceelal in la qodo qorshooyin dhaadheer oo halkan aan kusoo koobi karin in la dejiyo oo looga hortago in markuu roobka yaraado dadka macaluul iyo abaar waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin dal iyo dibad anoo og oo oga mahadnaqayo inay isxilqaameen oo haddaba meel walba ay joogaan ay sameeyaan inay wax soo ururiyaan inay wax soo diraan laakiin wixii weli waa yar yihiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan waa dadkeenii meel walba la joogo dal iyo dibad ganacsatada Soomaaliyeed si gaar ah ayaan baaq ugu dirayaa maanta waa maalin adag Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waa la doogiyayaan la dacaroon waxaan ka rabnaa ganacsatada inay jawaab waafi ah oo degdeg ah ka bixiyaan arrintan gurmad kii ugu weynaana ay la yimaadaan insha Allah ilaahay wuu barakayni raashinkii baa cirka isku shareeray qiimihiisii biyihii qiimihoodii baa cirka isku shareeray ganacsatada arrintaas inay ka foojignoodaan oo walaalahood ay garab istaagaan oo ay u raqiisiyaan raashinka iyo biyahaba marka ganacsatada baaqa ugu weyn ayagu ku socdaa culamaa u diinka barlamaaniyiinta waxaan leeyahay deegaanay ka soo galeen dad bay matalayaan in ay dadkaas iyo tuulooyinkoodii iyo meel walba wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan annagoo isku duuban intaan dhexda xiranna Soomaali shacabkeeda meel walba uu jooga arrintan sidaan wax uga qaban lahayn biyo gacmahaaga looga dhergaan inaanan dad kale wax ka sugin